معناها جعل وحبري عالم كالنبي عليه الصلاة والسلام بل أفرس جعلك النبي عليه الصلاة والسلام maalintii la furanayay fatxu mak dadkoo dhana dhinaciisa ay joogaan qurayshna ay imaanayso si nebiga u cafis weydiistaan waaba nebigu arkay haweeney cajuuso ah ee ka soo socota dadka gadaashood kadib nebiga dadka ayuu ka tagay wuxuuna la istaagay micigeeda sheeko aad u dheer ayaa dhex martay ilaa markii dambe go'iisa dhulka ugu fidiyey oo la fadhiistay haweeneyda cajuusada ah Aisha waxay aragtay nebiga calayhi salaatu wasalaam islaantan cajuusada ah waqtigu uu siiyey iyo ihtimaamka faraha badan markaasay dadkii weydiisay ku tiri tani yaa waay markaasaa lagu yidhi waa saaxiibtii khadiija nebiga calayhi salaatu wasalaam sheekadii markay u dhammaatay guriga ayuu ku soo laabtay Aisha weydiisay ku tiri naagta cajuusada adiga maxaad ka sheekaysanayseen maanta markaasaa nebigu ku yidhi waxaynu ka sheekaysanaynay maalmihii khadiija markaasuu hinaastay oo maseertay oo ku tiri miyaadan ka zuulin weli inaad xasuusanaysaa islaanta cajuusada ah ayada oo ciidda ka hoos martay ilaahayna kugu beddela mid ka khayr badan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi wallaah ilaahay mausan igu beddelin ayada mid ka khayr badan waayo iyadu markay dadkii i fogeeyeen ayada way i soo dhowaysay markay dadkii i beeniyeen ayada way i rumaysay Aisha waxay dareentay nebiga inuu xanaaqay markaasay ku tiri rasuul ilaahayow ilaah ii dambi dhaaf weydii markaasaa wuxuu ku yidhi adiguba khadiijo u dambi dhaaf weydii si aan kugu dambi dhaaf weydiiyo waa jacayl waa xubbi saadiqa nebiga calayhi salaatu wasalaam labadoodu wuu jeclaa siba khadiija mararka qaar waxaa dhici jirtay in cumar bin caas weydiiyey rasuul ilaahayow dadka yaa u jeceshahay markaasuu dhihi jiray Caaisha kuma aanan weydiin dumarka raggan ayaa u jeceshahay ayada aabbaheed ayuu dhihi jiray waayo nebiga aad ayuu dadka u jeclaa